xarunta degmada Waaberi ayaa lagu qabtay barnaamij wacyigelin ah oo ku saabsan dhiirigelinta kor u qaadista xuquuqda carruurta Soomaaliyeed kaas oo ay soo qaban qaadiyeen dhalinyarada Soomaaliyeed oo la magac baxay ololaha wadajireed iyo gobolka Banaadir ahna degmada magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Usmaan la taliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha howlgallada nabad ilaalinta ee dalalka soo qabanaya Ilwaad Elman Cali iyo sidoo kale maamulka degmada Waaberi ayaa goobjoog ka ahaa madasha barnaamijkan lagu qabanayay goobta ayaa waxaa lagu soo bandhigay riwaayado iyo suugaan ka turjumaysa xuquuqda ay mudan yihiin in ay helaan carruurta Soomaaliyeed iyo sidii mas'uuliyad gaar ah la isaga saari lahaa arrimaha dhiirigelinta carruurta Soomaaliyeed ilka ila hadal maxaa ku dhaay dawaan ustaad maxaa ku dhaay sooka wara maxaa ku dhaay hooyo abaa oo qalay ma ardi la hadal hooyo abaa inkasta dhibaatiyo ifiicalaadiyo dhammaan Soomaaliyeed sidoo kale waxaa goobta lagu qabtay tartan kubadda cagta oo qayb ka ahaa ololaha horumarinta carruurta Soomaaliyeed gudoomiyaha degmada Waaberi Mahad Cilmi Cali ayaa ka mahadceliyay ololaha wacyigelinta xuquuqda carruurta Soomaaliyeed ee degmada laga fuliyay waxaan aad ugu faraxsanahay runtii inaad fikrado oo na tusaaleynaya inaan dhinaca wanaaga u guurno oo aan ka guurno wixii hore ku mashquulsanayn inaad soo bandhigtaan aad ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan mahad celiyo Ilwaad oo runtii arrintan soo dhiirigelisay oo gadaal ka fadhisay sida muuqata iyo si qarsoonba waxaan rabaa inaan mahad celiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo asagana galabta arrintan si uu dhalinyarada kaalintooda meel cad u saaro ama u dhiirigeliyo nagala soo qayb gala barnaamijka yarka ah ee aan ku qabsanayna degmada la taliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha howlgallada nabad ilaalinta ee dalalka soo qabanaya Ilwaad Elman Cali waxa ay ka hadashay ahamiyadda barnaamijkani horta barnaamijkan waxa soo alifay hay'adda dhalinyaradan iskaashaday oo ka socdaan ololaha wadajireed marka runtii farxad aad u weyn ee tahay anaan gacan qabo karo aan caawi karo aan dhalinyaradan aan wixii u baahan yihiin si ay ku hirgeliyaan fikradooda laakiin waxaan dhan ay ka dambeeyay runtii waan ku faraxsanahay maanta garabkayga fadhiyo gudoomiyaha gobolka Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Usmaan injineeriso ayaa sheegay in dhiirigelinta xuquuqda carruurta Soomaaliyeed ay tahay mas'uuliyad cid kasta saaran annagana maamulka gobolka Banaadir waxaa naga go'an inaan xuquuqda carruurta ay noo noqoto midaan kaalinta koowaad siino midaan dhiirigelino carruurta Soomaaliyeed meel walba joogaan waxay naga mudan yihiin dhammaan xuquuqaha asaasiga inay helaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Ilwaad Elman oo runtii dadaal badan u gashay sidii dhalinyarada xuquuqdoodana u heli lahaayeen duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriso ayaa koobka tartanka ololaha wacyigelinta xuquuqda carruurta Soomaaliyeed guddoonsiiyay kooxdii guuleysatay Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.